السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لهانتين بخيار تاودا سيدا توسكان نوغا داوانيساي halkani waa Magan Media aniguna waxaan ahay Cabdulqaadir Maxamed ku soo dhawaada warkeena habeenimo qodobada ugu waaweynna waxa kamid ah agaasimaha hay'adda sirdoonka qaranka dalka Kenya Nuruddin Haji ayaa safar shaqo ku tagay magaalada caasimadda ee Muqdisho halkaas oo kula kulmay dhigiisa dalka Soomaaliya Maxamed Salaad wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya waxa uu ka hadlay warar baraha bulshada ee dadka Soomaaliyeed ku kulmaan lagu baahiyay kuwaas oo lagu sheegay inuu baneeyay xilkii wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya sidoo kale wararka daawan doontaan waxa kamid ah wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo dib uga noqday qoraal uu maalnimadii shalay soo saaray kuwaas oo shaqadii uu kaga joojiyay laba mas'uul oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda أخبارات كعالم كنا واحد كده داون دونتان مع القوانين إسكال شركة هو عن سنبرها بالشدة أو خلاف حكم وسوق على دحجله وده بدأ أسيا كوا كلا يد كده داون دونتان باهنتين ورك في النمى صاحب بيان ودي أرجروبة وحن مركو رأينا كعسلنا هدي أي تايم مركي جوه الرئيس وتصاب وقتبرها عن كل أنا هاي فيسبوك يسيدو كلا يوتيوب إن أدركم متو سيادو الله سعته وربحنا ذا يورك كلا قد السن يعني كوسو قد بنين ankubalona wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Abshir Umar Haruusi ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warar lagu baahiyay baraha bulshada kuwaas oo lagu sheegay inuu iska casilay xilkii wasaaradda arrimaha dibadda ee uu hayay waxa saacadihii u dambeeyay si weyn looga hadalhayay baraha bulshada warar sheegaya inuu is casilay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya mudane Abshir Umar Jaamac Haruusi wararkaasi ayaa waxa gabi ahaanba jiritaankooda beeniyay wasiirka oo sheegay inuu safar shaqo uga maqan yahay dalka dibadiisa wasiir Abshir Umar Jaamac Haruusi oo qoraal soo dhigay barta uu ku leeyahay Twitter-ka ayaa waxa uu ku tilmaamay wararka sheegaya inuu is casilay kuwa been abuura oo lagu jahwareerinayo dadweynaha Soomaaliyeed isma casilin wararka sheegaya inaan is casilay waa been abuur lagu jahwareerinayo dadweynaha ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Abshir Umar Jaamac Haruusi sidoo kale waxa uu ku yiri qoraalkiisa safar shaqo ayaan dibadda ugu maqanahay wararka la isla dhaxmarayay ee uu beeniyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa waxay ku soo aadayaan saacado kadib markii xeer laaliyaha guud ee dalka Soomaaliya sii daayay liiska mas'uuliyiin loo haysto musuqmaasuq oo qaarkood xiran yihiin halka kuwa kalena ay baxsad ka yihiin cadaaladda oo ay ku maqan yihiin dalka dibadiisa waxa sidoo kale ay ku soo aadaysaa xil uu wasiirku ka maqan yahay dalka taasi oo keentay in si degdeg ah uu beeniyo warkaasi oo si weyn la isula dhex qaaday saacadihii u dambeeyay baraha bulshada ee internetka sidoo kale wararaan helena ayaa waxa ay sheegayaan in wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya uu ku dareenayo inuu isu sharaxo doorashada 2024 bisha January lagu wado inay ka dhacdo gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan maamulka Puntland halkaasi uu doonayo inuu ka noqdo musharaxiinta u tartamaya xilka ugu sareeya maamulkaasi taasi oo haddii ay dhacdo keenaysa inuu xilka uu ka tago ama ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu shakhsi kale u magacaabo wasaaradda arrimaha dibadda iyadoo taas ay daba socoto wararkan la isla dhaxmaray ayaa waxa ay sheegeen in Haruusi uu durba go'aansaday inuu baneeyo wasaaradda arrimaha dibadda dalka si uu uga shaqeeyo tartankiisa ku aadan madaxtinimada maamulka Puntland wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur ayaa waxa lagu soo waramayaa inuu dib uga laabtay go'aan maalnimadii shalay uu soo saaray kaasi oo ku aadan shaqo joojin uu ku sameeyay xisaabiyaha guud iyo sidoo kale agaasimaha dakhliga ee wasaaradda maaliyadda dib uga laabashada go'aankiisa ayaa waxa lagu soo waramayaa inay ka dambeysay kadib cadaadis uga yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka mudane Xamse Cabdi Barre wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamed Nuur ayaa laalay shaqo joojin uu maalintii shalay ku sameeyay xisaabiyaha guud iyo sidoo kale agaasimaha guud ee dakhliga wasaaradda maaliyadda oo labadooduba maalnimadii shalay ay shaqada uga joojiyay amar diiday iyo wada shaqeyn la'aan wasiirku sheegay inay ku kaceen wareegtadan uu shaqo joojinta kaga laabtay wasiirka maaliyadda ayaa lagu sheegay in laalista ku xusan wareegtadan aanay burburinin jiritaanka eedeymaha maamul sidaas darteed agaasimaha guud ee dakhliga iyo sidoo kale xisaabiyaha guud ee wasaaradda maaliyadda waxa loo dirayaa digniin kaba dambaysa
iyadoo madaxda wasaaradda maaliyadda ay si dhow la soconayaan gudashada iyo hogaansanaanta waajibaadka shaqo ee la farayo. warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in wasiirka maaliyadda uu cadaadis kala kulmay madaxtooyada Soomaaliya iyo sidoo kale xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka oo ku aadanayd tallaabadii uu shalay shaqo joojinta ugu sameeyay xisaabiyaha guud iyo sidoo kale agaasimaha guud ee dakhliga ee wasaaradda maaliyadda, sidaas darteedna uu wareegtada uu maanta soo saaray kaga laabtay. wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamed Nuur ayaa warqadii shaqo joojinta ee shalay uu soo saaray waxa ku xusnayd in Maxamed Cabdiraxmaan Anas oo ah xisaabiyaha guud oo kamid ah kooxda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud dhawaana loo magacaabay xilkaasi ayaa lagu eedeeyay dambiyo waaweyn oo ay kamid yihiin inuu toos u damiyay systemkii ay ku shaqeynaysay wasaaradda maaliyadda ee laanta canshuuraha bariga ee dalka, sidoo kalena uu curyaamiyay bixinta mushaaraadka dawladda oo dhan. wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamed Nuur ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ka laabashada go'aankiisii shalay ay ka dambeeyeen kadib markii cadaadis uga yimiday madaxda dalka, si gaar ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo saaxiib dhow la ah xisaabiyaha guud ee wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo la sheegay inuu soo bandhigay inuu raggaasi shaqadooda dib ugu celiyo ama uu wasiirka waayo. agaasimaha hay'adda sirdoonka qaranka dalka Kenya Nuruddin Yusuf Xaaji ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu gaaray magaalada caasimadda ee Muqdisho, halkaasi oo kula kulmay dhigiisa dalka Soomaaliya Mudane Mahad Maxamed Salaad. dhinaca kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu soo waramayaa in Nuruddin Yusuf Xaaji agaasimaha hay'adda sirdoonka qaranka Kenya inay u gudbisay codsi ka dhana soo qabashada rag la sheegay inay lunsadeen hanti dadweyne kuwaasi oo ku sugan magaalada caasimadda ee Nairobi. agaasimaha guud ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dalka Kenya NIS Mudane Nuruddin Yusuf Xaaji ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada caasimadda ee Muqdisho. agaasimaha NIS ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Muqdisho ee Aadan Cadde ku soo dhaweeyay agaasimaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya Mudane Mahad Salaad. ujeedka socdaalka taliyaha sirdoonka Kenya ayaa waxaa lagu sheegay mid ku qotonta kor u qaadista iskaashiga labada dhinac, gaar ahaan la dagaalanka kooxaha argagixisada ah ee ka dhex dagaalama gudaha dalka Soomaaliya. booqashadan ayaa noqonaysa tii ugu horeysay oo Muqdisho ku tago agaasimaha guud ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dalka Kenya ee loo yaqaan NIS Nuruddin Yusuf Xaaji. labada hay'adood ee sirdoonka Kenya iyo midda Soomaaliya ayaa ka wada hadli doona sida la sheegay iskaashi u dhaxeeya iyo sidoo kale la dagaalanka kooxda Al-Shabaab xilli dalku uu ka socdo guluf ka dhana kooxdaasi. bishii hore ayay ahayd markii sirdoonka Kenya uu xiray ganacsade reer Mombasa ah kaasi oo la xiriirinaya inuu ku lug lahaa 2 shixnad oo isugu jira qalab ciidan iyo walxaha qarxa oo bil ka hor lagu qabtay dekedda magaalada caasimadda ee Muqdisho. ganacsadahan ayaa ka hor inta aan la xirin waxaa laanta la dagaalanka argagixisada ee Kenya ee loo yaqaan ADBU ay xog ku heshay in ninkaasi uu taageero saadka u fidin jiray kooxda Al-Shabaab, sidoo kalena uu qayb ka ahaa konteynaro laga shakiyay oo laga keenay gudaha dalka Shiinaha, sidoo kalena uu geeyay dalka Soomaaliya. si kastaba safarka taliyaha sirdoonka ee Kenya uu ku gaaray magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa imaanaya maalmo kadib markii uu booqasho qarsoodi ah ku tagay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyay madaxweyne Axmed Islaam Axmed Madoobe, halkaasi oo mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka Jubbaland uu kulan kula qaatay. waxayna wararku sheegayaan in labada taliye waa taliyaha sirdoonka Kenya iyo sidoo kale taliyaha sirdoonka Soomaaliya ay ka wada hadli doonaan sidii iskaashi dhanka ammaanka ay u wada sameyn lahaayeen taliyaasha nabad sugidda Soomaaliya iyo Kenya. dhinaca kale wararka Helena ayaa waxa ay sheegayaan in waxyaabaha looga wada hadli doono kulanka u dhaxeeya labada taliye inay ka mid yihiin shakhsiyaad ku sugan magaalada caasimadda u ah dalka Kenya ee Nairobi sidii dowladda Soomaaliya gacanta loogu gelin lahaa, iyadoona arrintaasi ay dowladda Soomaaliya ka shaqeynayso maadaama maalnimadii shalay ay xeer ilaalinta guud ee dalka Soomaaliya ay soo saartay waraaq ay ku qoran yihiin 18 eedeysane oo loo haysto arrimo musuqmaasuq, kuwaasi oo 9 ka mid ah ay dalka ka maqan yihiin. inta la og yahay dhowr shakhsiyaad oo kala duwan ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin magaalada caasimadda ah ee Nairobi, halkaas oo la sheegay in dowladda Soomaaliya ay dhigeeda Kenya ka codsanayso in loo soo gacan geliyo shakhsiyaadkaasi ku sugan magaalada Nairobi ee loo haysto lunsiga lacagaha dadweyne. وحكاك ولي واحد دعونا سان وركها بينما شبكة ورباهنا ذا مجن ميديا أنا عبد القادر محمد أنا وايد الله سعودسين يعني مركنا أخبارات كعالمك دولة وطن كمرايكان كيسيد وكلا دقة هذا الروش كيا وحال وصو ورمى يعني عيدا مضوضو أي كسكتين إن يسكت حدا قال لمان جودها وطن كسوريا.
militariga Mareykanka ayaa ku eedeeyay diyaaradaha dagaalka Ruushka inay mar kale ku kaceen dhaqan aan badbaado lahayn markii labaad iyagoo ku andacoonaya in si khatar leh ugu soo dhawaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka intii lagu guda jiray howlgal ay ka wadeen gudaha dalka Suuriya. qaybta adeega hawada ee taliska dhexe ee Mareykanka ciidamada cirka ee bartamaha ayaa wadaagay muuqaalo la sheegay in la duubay Khamiistii la soo dhaafay iyagoo sheegay in diyaaradaha Ruushku ay rasaas badan ku rideen horta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano MQ-9 iyagoo si khatar leh u duulaya taasi oo halis gelisay ammaanka dhammaan diyaaradahaasi sida la sheegay. muuqaal kooban oo la soo dhigay baraha bulshada waxa uu u muuqdaa diyaaradaha dagaal ee Ruushku leeyahay oo dambaaburaha digniinta ku ganaya meel u dhow diyaaradaha aan cidna wadin ee Mareykanka ka hor inta aanay khadka ka leexan, iyadoo madaxa ciidamada cirka ee bartamaha ee dalkaasi Mareykanka uu dhacdadan ku tilmaamay tusaale kale oo xirfad iyo ammaan toona lahayn oo ay qaadeen ciidamada cirka ee Ruushka ee jooga gudaha dalka Suuriya. markii labaad oo xiriira diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ayaa dhaqan aan xirfad lahayn kula kacay diyaaradaha Mareykanka ee marayay hawada Suuriya. fadlan daawo muuqaalka iska horimaadka ayaa lagu qoray muuqaal ka soo baxay taliska bariga dhexe ee ciidamada Mareykanka. ugu dambeyntiina labada bilyaneer ee iska leh shirkadaha ugu caansan baraha ay bulshada ku kulanta ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu khilaaf xooggan soo kala dhex galay kadib markii shirkadda Meta ay soo saartay ab cusub oo la sheegay inuu la qaab yahay abka Twitter. shirkadda Twitter ayaa ku anjabtay in maxkamad la tiigsan doonto shirkadda Meta saacado kadib markii ay bilowday ab cusub oo la yiraahdo Threads oo loogu talagalay inuu la tartamo shirkadda Twitter. ninka iskala Twitter warqad uu u diray madaxa Meta Mark Zuckerberg oo ay daabacday warbaahintu ayaa qareenka Elon Musk ninka lagu magacaabo Alex Spiro waxa uu ku eedeeyay Meta in si sharci darro ah u isticmaashay siraha ganacsi iyo hantida caqliga ah ee ay leedahay shirkadda Twitter. warqadan ayaa ku eedeysay shirkadda Meta inay shaqaaleysay tobanaan ka mid ah shaqaalihii hore ee Twitter kuwaasoo weli heli karay siraha ganacsi ee Twitter iyo xogo kale oo aad sir u ah sida la sheegay. Threads ayaa ah loolankii ugu adkaa ee wajahdo Twitter oo uu leeyahay Elon Musk taasi oo ku soo baxeen dhowr ab oo kala duwan balse aan awood u yeelan inay suuqa kala wareegaan mid ka mid ah baraha bulshada ee ugu weyn caalamka. tallaabadii ugu dambeysay ee uu qaaday milkiilaha Meta ayaa qayb ka ah loolanka sii kordhaya ee u dhaxeeya labada bilyaneer oo hadda ku ballansan dagaal feer ah oo foolka fool ah. Threads ayaa ka soo muuqatay halka abka lagala soo dego ee shirkadaha Apple Store iyo sidoo kale Android 100 wadan, waxaana falcelin hordhac ah oo laga arki karay ay muujinaysaa inay shabahdo ama ay isu eg yihiin Twitter. saacado gudahood ayaa waxaa la soo degay in ka badan 30 milyan oo qof sida uu sheegay milkiilaha shirkadda Meta. waxay u eg tahay bilowga wax gaar ah balse weli waxaana sugaya shaqo badan si aan u dhisno abkan, ayuu Zuckerberg ku soo qoray ciwaankiisa cusub ee Threads. waxaa durba akoona ka samaystay shakhsiyaad caan ah oo ay ka mid yihiin sida Jennifer Lopez, Shakira, Hugh Jackman iyo sidoo kale warbaahin ay ku jiraan Washington Post iyo The Economist. qoraal uu Elon Musk soo dhigay bartiisa Twitter oo la xiriira tallaabada sharciga ah ee ka dhanka ah Meta ayuu ku yiri tartan waa wanaagsan yahay balse qishka maya. afhayeenu hadlay shirkadda Meta ayaa boggiisa Threads ku soo qoray ma jiro qof ka mid ah kooxaha injineerada Threads oo hore shaqaale uga ahaa Twitter, taasina ma aha wax jira. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warkii caalamka oo si toos ah uga daawanaysaan shabakadda warbaahineeda Magan Media. anigoo Cabdulqaadir Maxamed aan idiin warramayay. saaxiibayaal hadday tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato baraha aan ku leenahay Facebook iyo sidoo kale YouTube inaad rukumato si aad ula socoto dhacdooyinka iyo wararka kale ee aan halkaas ku soo gudbino. inta aan ku kulmi doono warkeena warka xiga haddii eebaweyne raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo.